ururka dhalinyarada ee Golis Foundation ayaa waxa uu agab caafimaad gaarsiiyay tuulada Godayar iyo Darimara oo ka tirsan gobolka Saaxil. Agabkani caafimaad ayaa waxa baahi ballaaran u qabay bulshada ku nool deegaamadaasi. Odayaasha, cuqaasha iyo haweenka deegaamadaasi ayaa waxay si weyn ugu mahadnaqeen ururka Golis Foundation oo iyagu soo gaarsiiyay agabkani caafimaad. Waxayna yiraahdeen anigoo ah daryeelaha caafimaadka ee tuulada Godayar maanta waxaan loo keenay agab aad iyo aad u tiro badan kaasoo tayo leh oo deegaanka iyagu u baahnaa dad badan ay u baahnaayeen. agabkaana waxa ka mid ah hal wigsheer 12 gaari curyaamiina 230 birahan iyo curyaamiinta loogu talagalay 4 kartoon oo galoofisya iyo 9 bacood oo galoofisa iyaguna ah iyo 3 shaadh oo shaararkii daryeelayaasha caafimaadku ugu shaqeynayeen dadka ah. agabkan loo keenay aad iyo aad ayuu dadweynaha iyagu ugu baahnaa waxaanu rajeynaynaa dadka u baahan inaanu gaarsiino. aanu salaamaynaa ururka dhalinyarada Golis oo noo keenay qalabkii handicapta oo sariiraha ay kamid yihiin iyo qalabkii kale ee baabulcuriyaanada. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka dhalinyarada Golis. waa Golis waanaan u mahadnaqayaa waxaanay noo keenay si fiican waan uga gudoominay sariiraha gaari curyaanada kuwa gacmaha si wacan waan uga gudoominay gaari curyaanada dad baarlaysan oo yaala aanan qaadi karahaynin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka Golis ee noo keenay ma sha Allah ilaahay ha barakeeyo ayagana. si fiican ayaan ugu baahnayn ururka Golis ayaa noo keenay maadaama ay anigoo kale iyo wixii lamid ah ay ka faa'iideysan karayaan. alxamdulillah waan u baahnay waan si fiican baan idinka gudoonay. jooga magaalada tuulada Darimara waxaa halkan maanta aad iyo aad farxad ugu ah ayaga oo ururka Golis noo keenay waxyaalo badan oo aanan filayn oo kala duwan. taasoo lambar 1 curyaamiinta oo dadka naafada ah oo haba yaraatay ee aan qalbigayagaba ku jirin waa la xusuusan yahay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qalabkaasoo kala duwan oo dhowr nooc ah. waxaa kale oo farxad weyn noo ah in ay noo soo raaciyeen oo ay la socdaan qalabka dharka caafimaadka. mas-uuliyiinta ururka Golis Foundation oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warameen agabkani caafimaad iyo cidii soo bixisay waxayna bulshada deegaankaasi kula dardaarmeen inay ilaashadaan agabkaasi caafimaad. waxaan ku sugannahay xanaanada Godayar gobolka Saaxil. waxaanu halkan maanta ku wareejinaynaa anagoo ku hadlaya afka dhalinyarada horumarinta deegaanka ee Golis Foundation. waxaanu maanta ku wareejinay MCH-ka degmada Godayar magaalada Godayar alaab ka kooban hal wiilsheer 12 gaari curyaan oo baabuurta curyaanka loogu talagalay 12 gacmood oo gacmaha dadka tukubaha loogu talagalay ah 2 xabo sariiraha la jiifiyo bukaanka galoofisyo ka kooban 4 kartoon iyo waliba galoofisyo nooc kala ah oo ka kooban 9 bacood oo midkiiba ku jirto 12 xabo 12 biis shaarar ama kuwa dariiska loogu talagalay adeega caafimaadka oo ka kooban 3 xabo. waxaan aad ugu rajeynayaa inuu soo dhaw ugu mahad celinayaa dadkii soo bixiyay waan u duceynayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan wajigii labaad halkan ku qaybinay alaabtan oo ka kooban gaari curyaano gacmaha lagu tukubo dharka caafimaadka galoofisyo. waxaan rajeynaynaa dadka degmada iyo dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan alaabtan. sidoo kale waxaan faraynaa kula dardaarmaynaa inay ilaashadaan dayactirka alaabtaas. waxaan nahay ururka Golis Foundation waxaan u keenay qalab caafimaad oo aad u tayo leh sida ay lagu tukubayay iyo baabuur yar yar oo gacmaha lagu haysto ayaa ka mid ah. markaas deegaankan waxaan leenahay ka faa'iideysta waxaana soo gaarsiiyay mutadawiciin ka tirsan ururka Finland. ma aha markii ugu horeysay ee ururka dhalinyarada Golis Foundation uu deeqan noocan oo kale uu soo gaarsiiyo deegaamadani ay maanta ka qaybiyeen agabkani caafimaad. Cabdirasaaq Qaasin Jaamac, Telefishinka Sam News, magaalada Berbera.